Wasaaradda Amniga Gudaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa soo saartay awaamiir ay ku joojinayso in aan hub lagala degi karin garoonka diyaaradaha Maxamed Deere ee magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle iyo garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne waxaa maalmahan soo socda lagu qaban doonaa doorashada xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Waana labada deegaan doorasho ee loo asteeyay deegaanada Hirshabelle in ay ka dhacdo doorashada deegaan doorashadoodu tahay Hirshabelle si loo hubiyo badqabka bulshada loona helo doorasho ku dhacdo wadar ogol ayay Wasaaradda Amniga Gudaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle waxay hay'adaha ammaanka fartay in ay la shaqeeyaan maareeyayaasha garoomada diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne iyo garoonka diyaaradaha Maxamed Deere ee magaalada Jowhar si loo ogaado waxa ka dhagaya garoomadaasi maadaama magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne ay maalmahan soo socdo gaari doonaan musharaxiin badan oo u tartamaya ka mid noqoshada kuraasta xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay deegaan doorashadoodu tahay Hirshabelle. Wasaaradda Amniga Gudaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa ballan qaaday in ay sugi doonto amniga musharaxiinta u tartamaya ka mid noqoshada kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay deegaan doorashadoodu tahay Hirshabelle. Mahad Axmed Calasow, Hirshabelle TV, magaalada Jowhar.